السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابta qaaliga walaalahayga soo dhawaada meel kastaad ka joogtaan dunida daafaheeda aadaan idiin salaamaya maanta fideoga waa muhiime waxaan idiin soo diyaariyey wax kasta ood uga hortagi kartaan coronavirus iyo hargabiyada waqtiga hadda lagu jiro oo looga baahan yahay gurigaaga inay laga helo haddaba aan fideogeena gudagalno bismillaah allahuma salli calaa sayidina maxamed asxaabta fideogan aad ayuu muhiim u yahay waxa koobaad oo loo baahan yahay gurigaaga inaan laga waayin hadduu jiro qof corona ku dhacayna aada u diyaarisid waa sanjabiishu waa wax aada u muhiima oo u fiican fayrasyada lafaha soo dhisa caafimaadka u fiican waa soo diiraysaa markaan soo diirnayna waa tanaasaanay noqotay kadibna waa soo shiidaynaa runtii aada iyo aad ayay muhiim u tahay oo waad arki doontaa sida aan uga samaysano cabitaano sanjabiisha fireeshka haddaadan haysan midda caadiga ayaad isticmaalaysaa laakiin haddaa heli kartid sanjabiil fireesha ayaa muhiim ah haddaba waa soo shiiday walaalahayga waa soo shiiday adig wax badan ayaad soo shiidaysaa laakiin aniga hadda adiga ayaan ku tusayaa waxaad soo diyaarsanaysaa dhala nadiifa soo qalajisay qofka karoonaha qaba ama hargabka waxaad u gelinaysaa albaabka talaagada ama jikada ayaad u dhigaysaa aada iyo aaday muhiim u tahay sanjabiisha qandhada ayay jebisaa waxay la dirirtaa fayrasyada aadayna u wanaagsan tahay lafaha ayay u fiican tahay haddaba saasaad ugu xiraysaa furka oo jikada dhigane ama albaabka talaagada gashanaysaa waxa koobaad oon sanjabiisha ku diyaarsanayna waxaa waaye malab haddaadan haysan guri kasta malabku ma yaalo caanaha ayaan sameynaynaa hadda waxaan ku shubayaa hal qaado oo sokora asxaabta sanjabiisha aada iyo aad ayay important u tahay waqtiga fayrasyadu jiraan hadda sanjabiisheenii aan diyaarsanay ayaan ku daraynaa haddaa tahay qof gaastari qaba ha isku badinin hooyada qabta hooyada xaamilka baan leeyahay way u fiican yihiin bardu iyo midda ilmaha nuujinaysa laakiin ma iska badinayso sanjabiisha wax waxyeelaa ma lahan oo waxtarkeeda descriptionka ayaan idiin dhigayaa aaday ugu wanaagsan tahay caafimaadka weliba waqtigan karoonuhu jiro caano ayaan ku shubayaa caanaha waxay ku xiran tahay inta qof waa u sameynaysid ani halkooba hadda sameynaa waa ku tusayaa runtii caanahan aaday u wanaagsan yihiin dabka ayaa soo saaraynaa waa sanjabiil fireesha iyo caano haddaba saan markay usoo karaan udgoonkooda kaale iska arag waad miiraysaa qofka u qaba xanuunka karoonaha ama se hargabka aada ugu wanaagsan hargab hadduu ku hayo koobkan caanaha cabtid hargabka wuu kaa kala jarayaa maasha allah oo aada ugu fiican yahay sidoo kale qofka uu qaba virus corona uu ku dhacay wuxuu u baahan yahay waxyaabo dareero ah maanta dhan oo kala duwan inuu cabo oo maanta dhan mashaah buu cabaya waxaa loo baahan yahay naturaala oo caafimaadka u fiican inaa qofka loo diyaariyo asxaabta karoonuhu waa hargab weyn marka ha u arkinina wax dhibaata haddaa malab heli kartid malab ayaa ku darsanaysaa ilaha raxmaanka dadka ha caafiyo dadka maanta way wada jiran yihiin marka fideoga waa muhiim walaalka u sheergaree qof kasta oo aad gaartid waxaan halkan ku hayo oo kale waxaa waaye asxaabta waxaa loo yaqaanaa nacnacada waa very important qandhada ayay kaa jebinaysaa saad ogtihiinba qofka hadduu virus ku dhacay ama hargab uu ku hayo labadaba qandho ayaa ku qabanaysa sanjabiishii aan hadda soo tumanay sanjabiisha iyo waxaa loo yaqaana nacnacada labadaba lafaha ayay xoojiyaan hargabkana way u fiican yihiin qandhada way kaa jebinayaan fayrasyada way la diriraan maxaa sugaysaa haddaba fideoga sii sheergaree walaalahayga like-na ka buuxi waa fideo aada muhiim u ah sidoo kale sokor ayaa ku darsanaysaa malabka ayaa ka wanaagsan laakiin meel kasta saan kuu sheegayba guri kasta malabku ma yaalo oo markaas wixii aad haysatid ayaa la isticmaalaa haddaa malab haysatidna waa kheyr iyo barako asxaabta hadduu kugu dhaco karoonuhu waa hargab weyn marka ha u malaynin inuu wax weyn yahay nafsiyan ha u jiranin wixii ilaahay kugu keeno waa lagu xamdiyaa kadibna waa lala diriraa oo alle wuxuu ku dhahay taxadir cala nafsi
qofku wuxuu u baahan yahay waxaad cabtaa waxyaabo badan oo dareeraha si aan xanuunka ugu gudbinin sanbabadaada, waayo waxaa jira koroono iisi ah oo hargabka oo kale oo dadka dhan wada haya. Marka waxaad kula diriiri kartaa natural inaad isticmaashid naftaadana soo dhistid oo aadan nafsiyan isu dareensiin inuu xanuun weyn kugu dhacay. waman yatawakal cala allah fahuwa xasbu, ilaahay tala saaro asaga ayaa ku caafinaya. waxa kale waxa waaye baarsali, nacnaca iyo xabad jablin dhanaana. runtii baarsaliga aada very important u yahay. descriptionka ayaan videoga waxtarkiisa idiin dhigayaaye adaa jeclaysan doontid videogaas hadaad dhageysatid. haddaba qofku wuxuu u baahan yahay hargabka qaba ama karoonaha ama qofka caadiga dabiiciga cabitaano kala duwan najuraala. saan hadda waxaan ku haysanaa 3 cabitaan. asxaabta videoga like dhahaya, sii share gareeya si u gaaro qeyrka channelka. haddaan ugu cusub tahay subscribe dheh, gambaleelka furo say kuu soo gaaraan wax kasta oo cusub oon soo dhigno. haddaba asxaabta waxa kale loo baahan yahay gurigaaga inuusan ka dhammaan waqtiga aan ku jirno. waxaa loo yaqaanaa malmal. waxaa layidhi geelaba jir soo wada mariyo malmalka saan u egiya. qof walkasta khad wuu soo riiqday, khadda ayaa lagu riiqdaa. malmalku waa waxa adduunka ugu wanaagsan. wadanka kaliya oo uu ka baxo waa wadankeena. waxaa loo baahan yahay waa antibiyootig aada u xoog badan. waxaad ku daraysaa saliid saytuun amase waxaa loo yaqaan subag sixina bes, wax kale kuma daraysid. jab yariisa aan soo dhaqay ayaan ku daraya, aada u dhaqay saasuu la madow yahay. waxaan ku shubayaa saliid saytuun. hadaa heli kadhid nooca ugu wanaagsan oo asalka soo gado, waayo saliid saytuunka waxyaabo la qasha ayaa jira, mid nadiifana way jirtaa. marka hadaa awoodid nooceeda fiican soo raadso, ama subag sixina. saliid kale ma anfacayo. dabka ayaa soo saaraya. markuu qandaco maxaa sameynaya, kasoo qaad karoonaha ku haya, waxaa kaa tagaya dhadhanka iyo urka. hal qaad ka liqaysaa sankana. markuu xoogaa soo qaboobi rabo fiiq baa dhehaysaa. waxaa dareemaya urkii kuusoo noqonaya. antibiyootiga ugu xooga badan waaye. subxaanallah, dadka reemiyiga ayagoo aan kitaabana dhigan cilmina lahayn ayay dadka saan ugu daaweyn jireen. ilaahay ayaa wuxuu siiyey cilmi rabbaaniya, caqlina alla wuu siiyey. sidoo kale asxaabta haddii ay qandho ku haysa saliid saytuunka waxaad ku akhrinaysaa faatixada ayad kursida. hadaa awoodid suurata baqra, jirka dhan ayaa marsanaysaa, qandhada way kaa jabaysaa. sidoo kaleeto saliid saytuunka lafaha ayay u fiican tahay. waxay kaloo u fiican tahay jirka, quruxay kaaga dhigaysaa. oo markasta jirka dhan marso. markaa qubaysatidna jirkoo dhan soo marso, aaday u fiican tahay. waxaa loo yaqaan malmalka antibiyootig ka xoog badan ma jiro. waxaa la sameeyey baaritaano, waxaa lagu ogaaday xanuuno badan inuu daawo u yahay. sidoo kale maxaa sameynaya, jab yariisaa soo qaadanay. kan aan hayo oo 4 meelood meel u qaybisay ani biyaha aan ku dhex riday ayaa biyo ku dhex ridaysaa. wax yar kadib baa cabaysaa. haddii ay caloosha bakteriya kaaga jirto, bakteriyada wuu dilayaa, fayraska wuu la dirirayaa. sidoo kale hadaa tahay dadka egfishinka qaba, ku dhaqo. aaduu antibiyootig cajaba u yahay oo aan lasoo koobi karin. waxa kaleeto loo baahan yahay gurigaaga waqtiga hadda lagu jiro, waqti adagaa lagu jira asxaabta, ilaan laga waayin waa liindhanaanta. hadduu jiro qof oo qaba fayraska coronavirus ama hargab, talaagada u geli. waa soo miiraysaa. ani hadda 5 xabo camalaan soo miiray. adi wax badana soo miiranaysaa. dhalo weyn oo buuxda inaad ka samaysataa loo baahan yahay. hadda waxaan sameyneynaa malab ayaan ku dareynaa. runtii aad saad ogtihiinba difaaca jirka ayay liintu soo dhistaa. fayras kasta oo soo agmari kara ma jiro, oo wax kasta oo fayrasa way ka takhalustaa. hadda wax kasta xataa waa ogtihiinoo waxyaabaha jikinka lagu dhaqaa, guriga lagu nadiifsadaa. sidoo kale waa la cabaa. hargabka waxay leedahay baybay, way kaa kala goynay hadaa saan u samaysatid. liindhanaan iyo malabba isku daree, malab badan liindhanaana isku dareysaa. cajab weeye. haddii dhuunta ku cuncunayso, qaadaa soo qaadane, koob baa ku shubee, biyo kulul baa ku dhibcine, biyo yar waa ka kabanaysaa. dhuunta okay bay kuu noqonaysaa. hargabka qaadaa soo, hadduu hargabku hayo hal qaadaa subaxii liqaysaa. maasha allah. dhalo aad soo nadiifsatay, dhalo weyna buuxsanay. ani hadda dhalo yaraan ku shubaya.
dhalan nadiifa oo fur adag leh ayaa ku shubanaysaa. waxaad dhiganaysaa jikada ama talaagada albaabkeeda gashanaysaa ee cunuga markuu hargabku kaaga dhaco subaxii markuu sii kacayo oo iskuulka u socdo waxaad siinaysaa qaadaa liqsiinaysaa, waayo waxay dhisaysaa difaaciisay dhisaysaa. qofka karoonaha hayo waa inuu markasta qaado ka cuno, sidoo kaleeto waa inuu biyaha ku darsado. qofka uu xanuunka fayraska hayo ama hargabka hayo wuxuu u baahan yahay wax liquid dareero ah oo maanta dhan uu cabo. runtii waxaa samaysan asxaabta, caafimaadku waa nicmada allana siiyeyna waa inaan ilaalsano. taxadir calaa nafsi sameeya, ilaahayga raxmaanka qof kasta oo xanuunsanaha caafiyo. saan oo kale hadaa adiga waa cunaysaa, ilmahaagana waa siinaysaa. dhindhanaanta aad iyo aad ayay caafimaadka ugu wanaagsan tahay. waqtiga karoonaha jiro gurigaaga yaysan ka maqnaanin. qof haduu jirana waa inaa u diyaarisid. waxa kaleeto oo loo baahan yahay gurigaaga inaan laga waayin oo u samaysid qof kasta hargab karoone hayo waxa weeye lubaan dakarta. waxa loo yaqaan lubaan dakartu waa fooxa aan shidano. waxaa samaynaysaa waa dhaqaysaa, aada u nadiifinaysaa, in yar aa soo qaadanay, wax badan maka isticmaalisid. litir biyaabaa soo qaadanaysaa, dhowr xabo oo lubaan dakarta saan kuu sheegayba waa fooxa cadcad, ma ahan beeyadana, ma ahan sabqa carabina, ma ahan, waa fooxaas caadiga oo meel kasta laga helo. adduunka meel kasta aad joogta waa kasoo helaysa. aaday important u tahay. ani hadda xalay baan biyahan ku dhigay, habeenkii baa dhigaysaa 1 litir, dhowr xabo yaraa ku shubee, laakiin waa inaad dhaqdid. waxaa sameynaya waa miire. geedkan hadaa saan u samaysatid mindhicirka gidaarkiisa ayay dhistaa. descriptionka idii dhigaa videogaas waxaan idin leeyahay dhageysta, aada u wanaagsan yahay. waa iska miire, dhaladana ku shubane, marka sidii biyuhu uma cabaysid, hadba waa ka kabanee. dad badan ayaa coronavirus uga biskooday, marka aaday u wanaagsan tahay. gaariga gashanay hadaa qof gaari wata tahay, hadii kale guriga dhigane, hadba xoogaabaa kabanaysaa. hadaa tahay dadka dhuunta xiran tahay, dhuunta wuu u fiican yahay, maasha allah, codka wuu kuu furayaa. waxyaabaha fahmada kor usoo qaada ayay kamid tahay lubaan dakarta. aad iyo aad ayay fayrasyada ula dirirtaa oo aaday ugu wanaagsan tahay caafimaadka. waxtarkeeda lama soo koobi karo. waa geed cajab ah asaga dhan, maasha allah. waxaa sameynaya weel baa ku shubanaysaa, hadba in yar baa kabanaysaa. runtii aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay, waa idinkula talinayaa. gurigiina yuu ka dhammaaninana geedkan loo yaqaano liibaan dakarta, saasaa u furanee, hadba in yaraa ka kabanaysaa. aaday u wanaagsan tahay. tan kale waxaa loo baahan yahay fitamiino inaa cuntaan. waqtiga qaboobaha dadku marka ay kuleylaha tahay wejiga waxbay marsadaan, jirka way isqurxiyaan, laakiin qaboobaha la isma qurxin karo. marka waxaa idinkula talinayaa inaad cuntaan waxa loo yaqaano fitamiino. hadaada fitamiinada haysan maxaa sameynee, waxaa soo qaadanaysaa waxa loo yaqaano liinbabeelmada ama saliinta orange ama any nooc oo liinta ah. waa diirane, waa cunaysaa. fitamiin c kasta ayaduu ka buuxaa. aaday ugu wanaagsan tahay. waa inaad ku dadaashaan caafimaadkiina. runtii videogan aniga wax kasta oo muhiima idiin soo xulay, marka waxaan rajeynayaa videoga like iyo share inaa isugu dartaan si uu walaalka kale oo u baahan uga faa-iideysto. hadda saasaad waxaad ku haysataa waxyaabo najuraala, caafimaadkaaga kor usoo qaadaya. caanihii aan sanjabiisha kasoo sameynay, cabitaanka aan sanjabiisha kasoo sameynay, sanjabiisha oo aad ayadiina diyaarsatay. runtii asxaabta waqtigan hadda lagu jiro waa waqti adag, waa inaad caafimaadkiina ka taxadirtaan. videoga antaas ayaan jeclaystay maanta inaa idinla wadaago. videoga like dhahaya, sii sheer gareeya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.